waa mahadsantihiin runtii maanta oo ah 17 bisha August 2019 waxaan joognaa howlkii golaha badbaadada Jubbaland oo ay ka socoto doorashadii guddoonka golaha baarlamaanka guddoomiyihii iyo labadiisa ku xigeen aan rajaynayna saacadaha soo socda in la dooran doono haddaanu nahay golaha murashaxiinta isbedel doonka Jubbaland waxaan cadaynaynaa si official ah inaanan ka qayb galaynin aqoonsanaynin u hoggaansamaynin sharci darrada ay ku shaqaynayaan guddigii hore ee doorashada loogu talagalay inay hagaan oo noqday sidaan hore u sheegnay guddi hal murashax u shaqaynaya waxaan rabnaa waan aragnay qoraalada ay soo saareen ee sheegaya 3 cishaan ku daray iyo wax la mid ah waxaas annaga waxna quseeya ma aha baarlamaankii xalaasha ee Jubbaland halkan uu joogaa ee odayaashu soo xuleen ee guddoonkiisiba maanta la dooranayaa madaxweynaha xilku ka dhamaaday Axmed Maxamed Islaan ee halkaas doorashada kaliya ku qabsanaya waxaan ugu baaqaynaa inuu applicationkiisa halka keensado hadduu murashax yahay haddii uu ka tanaasuleyna dee guddiga doorashada weydiin doona ee maaragtay golaha ay samaynayaan waxaan rabnaa inaan anagu sheegno inaan ku taaganahay dariiq saxa oo lagu dooranayo guddoonka golaha baarlamaanka maanta haddii la yiraahdo maalmaha soo socdana lagu dooran doono haddii la yiraahdo madaxweynihii marka guddigu ay qabanqaabiyaan baarlamaaniga ee loo soo saari doono waxaan rabnaa inaan cadayno beesha caalamka u cadayno dawladda Soomaaliya u cadayno shacabka Soomaaliyeed u cadayno in doorasho ku sheegta ay wadaan kooxda gaarka ee waqtigu ka dhamaaday ee doonaya shacabkii Soomaaliyeed inay afduubaan ee doonaya inay caburiyaan ee doonaya inay maxaan ku yiraahdaa qaarna laayaan qaarna masaafuriyaan marna uma hoggaansamayno marna ma aqoonsanayno hadday 3 soo saaraan iyo hadday wax kale soo saaraan toona waxa beesha caalamku ay ka hadashay African Union ka hadlay UN ku ka hadlay IGAD ka hadashay dawladda Soomaaliya ka hadashay waxa weeye meeshaan labo mid inay dhacdo doorasho la wada leeyahay oo laga wada qayb qaato oo xor iyo xalaal oo transparency inay ka dhacdo hadday ka dhici weydo doorashooyin la kala leeyahay baa ka dhici doona sidaan hore u yidhi wayna socdaan haddii alla yidhaahdana waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda inuu soo bixi doono guddoonkii golaha baarlamaanka ee golaha badbaadada kaasaana sharci noqon doono oo haysan doona maxaan ku yidhaahdaa jaayizada ama aqoonsiga dawladnimo shacab iyo bulsho intaba aad baa u mahadsantahay